koobi soddon cisho si xidhiidha duulimaadyo kala duwan oo ay ku buufinayaan ayaxa uga sameynayeen gudaha dalka. labadan diyaaradood oo nooca qumaatiga u kacay ismaraantana xilligan wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ku gacan siinayso hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan FAO ay waxaa ka suuragal in noqotay inay qayb ka noqdo duulimaadkii 12 ee diyaaradahan ka sameeyeen gudaha dalka. hadda waxaan isu diyaarinaynaa ababahayaga nala socda. hadda uu noo bilaabmay duulimaadka diyaaradda. duuliyaha diyaaradda Kasoko waxaa safarka igu welinayay Maxamed Cumar oo kamid ah saraakiisha wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland gaar ahaan waaxda badbaadada beeraha. in ka badan 30 kiiloomitir oo hawada sare aan ku soo jirnay waxaan hadda soo gaarnay deegaanada diiradda iyo sidoo kale shaqale oo ka tirsan degmada Dar es Salaam oo jihada dhanka waqooyi ka dhaca magaalada caasimadda Hargeysa una jirta masaafo aan ka yarin 30 kiiloomitir. waa deegaan u badan beeraley iyo sidoo kale xoolo dhaqato. dadka ku dhaqana muddooyinkii ugu dambeysay walaac xooggan ka qabeen ayaa soo gaaray oo saameyn ku keenay beerihii sidoo kale dhulkii xooluhu daaqayay. 24 saacadood ee ugu dambeysay oo ka warheleen wacyigelinta mas'uuliyiinta wasaaradda beeraha ee ku aadan in diyaaradahan iyo sidoo kale buufintu ay ku soo wajahan tahay. Kasoko waxay saaka hiirtii hore ku waabariisteen kuwa diyaaradahan qumaatiga u kaca oo deegaanadooda soo gaadhay. Maxamed Cumar iyo sidoo kale saraakiisha wasaaradda beeraha ka socday ee ku kala qornaa labadan duulimaad waxay dhankooda gudagaleen in bulshada ku dhaqan deegaanadan ay faahfaahin mar kale ka siiyaan ujeedada socdaalkooda iyo sidoo kale sunta loo isticmaalayo buufinta inaanay ahayn mid saameyn ku yeelanaysa deegaanka iyo sidoo kale xoolaha iyo bulshada ku dhaqan, taasoo sabab u noqotay in dhankooda ay si aad ugu riyaaqaan soona dhaweeyaan saraakiisha ka socda wasaaradda beeraha. daqiiqada yar oo kooban kadib diyaaraddu waxay guda gashay buufinta ayaxa. qaybo ka mid ah bulshada deegaanka ku dhaqan ayaa la hadlay telefishinka Somali Cable waxaanay ka dareenaliyeen gurmadka xukuumadda u soo samaysay ee ku aadan buufinta ayaxa. ka waran iyo ayaxa saameynta uu ku yeeshay. ayaxa saameynta hawl badan buu ku yeeshay deegaanka iyo goobaanada Dar es Salaam hareerayda uu ku soo noqnoqday daaqana xoolaha uu ka cunaya beeraha hawl badan buu geystay. kolka maanta waxa nala joogtay wasaaradii beeraha gurmadki diyaaradina way joogtaa si wanaagsan iyo ilaahay mahadi weey مسؤوليته وساعد بلغو مهد عليا والله مهد نقيا aad baa lagu mahadnaqay saamaynta uu nagu yeeshay wallahi aad bay u badnayd waana balaarnay beeraha iyo xoolaha iyo gidi wayna saamaysay si fiican oo ugu mahadnaqanaa wasaaradda iyo gurmadka ay noo fidiyeen ma sha Allah alxamdulillah ilaahay baan ugu mahadnaqanaa hadda laba diyaaradood baan la jooga si fiican wal nooga buufinaya aad si fiican buu ugu daadanaya imika waan arkaynaa isagoo daadanaya ka waran waliid ku sii wacyigeliyay waxaan inaanay saameyn lahayn xalay baa la noo sheegay in wasaaraddu noo imanayso si fiicanna way noogu shaqaynayaan ma sha Allah alxamdulillah. deegaankan aan ku suganahay diirato ee degmada Dar es Salaam waa mid kamid ah goobaha ayaxa lagu arkay tirada badan geedkan oo kale oo hadda iga dambeeya waxa dul tuman ee ka buuxa waa ayax saameyn xoogan oo u geystay aad ka dareemi karto sida caleemihii iyo laamihii uga wada saaray meesha. muddooyinkii ugu dambeysay ayaxu waxa uu si weyn saameyn ugu yeeshay deegaano kala duwan oo ka mid ah dhulka Soomaaliland walow dadaalka wasaaradda beeruhu aanu hayn mid yar. haddaba waxa garabkayga bidix xilligan taagan Maxamed Cumar oo ka mid ah halwadanada wasaaradda beeraha ee qaybta la dagaalanka ayaxa. doorkan waxa uu ka duwan yahay doorarkii hore ayax tiro badan baa lagu arkay deegaanadii dalka isagoo koron uu magaalooyinka soo galay oo kooxa u socda waliba xilliga casarkii oo kale soo duulaya. bal isbedelkan maxaa keenay badan kartaa. بسم الله الرحمن الرحيم horta ayaxu dhibaatooyin badan buu leeyahay isbedeladan iyo waxyaabahana waxa keenay ayaxu sidiisaba marka hore uu macnaha dhulka ku aaso ukuntiisa ayaxan marka hore waxa ka tagay ayax 2019 inoo yimid baa ku aasay dhulka deena mar roobabkii markii ku deeyeen buu dilaacay markii uu dilaacay muddo badan buu koron stage shan stage buu maraa marba color buu bedelaa marka sababta keentay waxa weeyaan ayaxan faraha badan la ee wadanka imika ku baahay wuxuu ku aasay meelo badan oo aanu markii hore ukuntiisa dhigi jirin ayuu dhigay taasina waxay keentay inuu fara badnaado oo ayaxaad fara badan noqdo. farqi u dhaxay kani wuu ka badan yahay kii hore waxa weeyaan imika waxa la sheegay ilaa 25 sano ayax noocan oo kala ameynaan arag marka taasina waxa keentay cimilada oo u saamaxday roobo badan ayaxano markiisii hore Yamanta ka soo talaabay mid Itoobiya ka soo noqonaya waxa taas keentay marka isbedel fara badan buu leeyahay.
idris ayaa xilligan garabkayga bidix taagan oo ah isuduwaha wasaaradda beeraha ee degmada Dar es Salaam bal sideed bulshada ugu sii wacyigeliseen ka hor intaan diyaaraduhu iman maadaama dadka cabsi ka qabaan buufintan iyo diyaaradahan joogga hoose ku duulaya runtii waxaanu ku wacyigelinay bulshada in diyaaraduhu hawshan ay wadaan iyo dawadan ay isticmaalayaan run ahaantii ay tahay mid organiga oo wax dhibaato lahayn hase ahaatee maadaama ay meeshu tahay dooxooyin iyo dhul biyale waxaanu uga dignay had iyo goor inta hawsha socota inay u baneeyaan diyaaradaha si ay hawsha u fuliyaan isla markaana ay ka taxadiraan meelaha sida ceelasha biyaha oo kale ayaynu ku wacyigelinay dadkuna si wanaagsan bay run ahaantii noola qaateen aad iyo aadna way hawshuna si wanaagsan ayay noogu socotaa ilaa imika deegaankan Dar es Salaam wuxuu ka mid yahay dhulka beeraleyda bal ka waran saameynta uu ku yeeshay ayuxu iyo intii uu idila joogay runtii saameyn aad iyo aad badan buu nagu yeeshay ayuxu wuxuu nala joogay muddo ku siman laga soo bilaabo bishii June 2019 hadba uu soo noqnoqonayay laakiin imika muddo 2 bilooda wuxuu ku sugan yahay marxalad aad iyo aad u fara badan yahay uu dhansatiyay waxaanu aaminsanahay baa Dar es Salaam inay noqotay logo centerkii Somaliland oo ayaxa ugu fara badan labadii maalmood ee ugu dambeeyay gaadiidkii baa nala joogay oo si fiican iyaguna uga hawl galay laakiin wuxuu noqday wax aad iyo aad xadka baxa maadaama uu had iyo goraalo ayuxu tagaa xeebta Dar es Salaamna waa marin xeebeed waana dhul aad iyo aad u ballaaran oo 13 doox baa ku yaala in ka badan 1400 oo beerood oo beer waraab ku yaala waxa ku yaala in ka badan 960 beerood oo beer roobaada marka taas waxayna tusinaysaa meel wal oo Dar es Salaam kamid ah uu dego waa crop area oo wuxuu ku degayaa dhul beeraley marka saameyn aad iyo aad u fara badan buu nagu yeeshay hase ahaatee wasaaradda horumarinta beeraha wasiirka wasaaradda iyo agaasimaha guud ay hormuud u yihiin iyo waaxda badbaadada ayaa waxaanu culays ka saarnay waa markii saddexaad ee gaadiidku ay noo yimaadaan diyaaraduna waa kuwan maanta waxaanu jaan soo helay dhul xoogagii u dhaxeeyay dooxyada ayaanu bahalkii ku haleelnay marka waxa weeyaan aad iyo aad baa looga hawl galay oo dadaal fara badan baa la geliyay laakiin saameyn aad iyo aad u fara badan ayuu ku yeeshay beeraha intee bay duulimaadyada diyaaradahan buufintooda sii soconayaan imsa waxay sii soconayaan hadba sahan baan anagu diraynaa xafiiska isu duwahaan ee wasaaradda hadba waxaanu anaga bulshada la xiriiraynaa maadaama ayuxu yahay noocii duulayay marba meel buu tagayaa marka waxay sii soconaysaa in ilaa iyo inta uu ayax ka joogo ayay sii soconaysaa maxamed siciid waa agaasimaha waaxda badbaadada beeraha ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland waxaanu dhankiisa sharaxaad ka bixinayaa duulimaadyadii ugu dambeysay diyaaradahan ay sameeyeen iyo sidoo kale dadaalada xukuumadda ee ku aadan buufinta ayaxa ilaa hadda halka ay marayaan sida adigu aad soo socotaan xagga buufinta ayaxi iyo diyaaradaha hawsheeda wata muddo baan joognaa waxaan bilaabnay gobolkii Maroodijeex bilowgii xagga hawdkii Hargeysa banankii qool cadiyo bankii gumburaha fa bariyaha oo dhan oo ku jirna xagga fa xagga hawdkii waxaan buufinay ilaa Salaxli Toon magaalooyin kale magaalo Xaali Jibaaqa loo eriyadii oo dhan dhinaca hawdkii iyo oqooyigeeda dabeedna waxaan tagnay Burco laftigeeda muddadu way buufisay loo hektaar badan bay buufisay dhinaca ayaxi dulduulaya iyo koronkorti dabeedna imika halkan waan imaadnay insha Allah waxaan loo bilaabayaa dhinaca oqooyigii Hargeysa fa insha Allah imika loo bilaabayaa ayaxi oo aan muddadan ka shaqeynay hadda waxaan la joognaa garoonkii diyaaradaha ee Cigaal International oo ay diyaaradihii ayaxa buufinayay joogaan muddo badan ayaanu ku jirnay buufintan ayaxa oo maxay ahaydey waa markii labaad aan Maroodijeex ku soo noqono hadda markii hore waxaanu ka buufinay koronkoro iyo ayax isku jira oo wada socda ayaanu ka buufinay Maroodijeex kadibna waxaan u gudubnay gobolka Togdheer waan soo gabagabaynay hadda waxaan dib u bilownay ayaxii koronkoradii oo kacday oo hawdilaacsatay oo inteeda badani nagaga soo gudubtay dhinaca Itoobiya ayaan hadda ka tiroonaa haddaba saaka waxaan u soconnaa xagga waqooyiga Hargeysaad oo ayaxu sida inta badan dhinaca u socdo oo ah waqooyi galbeed dhinaca waqooyi xeebaha ah ayuu u socdaa ayaxan hadda aanu ka tiroonana waa koronkortii oo baadilaacsatay Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga Somali Cable
deegaanka degmada daarasalaam ee duleedka waqooyi ee magaalada Hargeysa.